Dhacdo naxdin leh oo ka dhacday xaafadda Bulumazuri ee Wagberi ayaa maleeshiyad hubeysan waxay weerar ba'an ku qaadeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan, iyadoo hal qof uu ku dhintay, labo kalena ay dhaawac culus soo gaareen. Ragga dilka geystay oo aan heybtooda la garanayn ayaa waxay Isniintii fureen rasaas xooggan, taasoo argagax iyo qallaase ka dhex abuurtay bulshada dhexdeeda. Dhacdadan naxdinta leh ayaa ka dhacday deegaanka Bulumazuri oo ku dhow xarunta Kunaso, sida ay sheegeen dad goobjoogeyaal ah. Maleeshiyaadkii hubeysnaa ayaa si lama filaan u yimi, waxa ayna bilaabeen inay rasaas aan loo meel dayin ay ku furaan dadka deegaanka, taas oo keentay cabsi. Axmed Deeqow Tuuxo Hilowle oo ahaa shakhsi dhalinyaro ah ayaa si murug leh goobta ugu nafbaxay, isagoo aan u gacan galay qallaasaha macno darrada ah. Marka laga soo tago khasaaraha dhimashaha, laba kale oo lagu kala magacaabo Liibaan Cali Ibraahim iyo Firdowse Cabdiwahaab Xaaji Yuusuf ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo culus intii uu socday weerarka. Xaaladooda ayaa weli ah mid halis ah, waxaana si degdeg ah loo raadinayaa daryeel caafimaad si loo xaqiijiyo badbaadadooda. Dadka deegaanka oo aad uga xumaaday shaqadaasi kadiska ah ee halkaasi ka dhacday ayaa waxay dareen naxdin iyo fajac ah ay ku muujiyeen sida ay ugu dhiiran yihiin ragga hubeysan ee weerarka soo qaaday. Goobjoogeyaal ayaa ka sheekeeyay xilliyada argagaxa lahaa markii dhawaaqa rasaasta laga maqlay xaafadda, taasoo keentay in dadku ay naftooda la baxsadaan. Jawaabta ka soo baxday maamulka deegaanka ayaa si weyn isha loogu hayay, iyadoo imaanshahooda goobta uu dib u dhac ka yimi keentay in dadka deegaanka ay dareemaan dayac iyo beylah. Bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa ka dalbanaya hay'adda ammaanka in tillaabo degdeg ah laga qaado si sharci loo horkeeno dambiilayaasha, isla markaana dib loo soo celiyo dareenka ammaanka iyo ammaanka Buulahodan. Culayska xaaladda ayaa dhalisay caro, waxaana lagu baaqay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo si loo ogaado kooxihii dilka geystay, isla markaana loo ogaado waxa ay ka dambeeyaan. Wakaaladda Garissa maanta waxay si dhow ula socon doontaa sida ay wax u dhaceen dhacdadani naxdinta leh.